بسم الله الرحمن الرحيم. انتنا لغيسانيساي وحسن محمد يوسف يوسف عثمان عبد الله يوسف شاعر oo mar kale idin le ku soo dhawaada cajaladana waa qaybtii labaad ee silsilad suugaaneedii Siinley oo ka kooban inta la og yahay 28 heesood oo ay isweydaarsadeen 13 hal abuur oo kala ah عبد آدم حاد عبد قيس محمد إبراهيم ورسمي أدراوي علي سليمان محمد وعلي سليمان بالدلوية قاني حاج آدم أحمد أفقلوع محمد حاشلم عقارية سعيد صالح أحمد محمد عبد الله الريراش يوسف جامع أو يوسف عنفر كمك على راب أحمد محمود محمد سعيد عثمان أو ويدار لوية قاني حسن علمي إبراهيم أو سليمان إبراهيم قال لي إيو قبل كلية إيو سلسلة ذا كقيب قادتي أو لورين شري عاشا جامع ديرية halka ugu hagaagaysa waa hooyga ururinta suugaanta Cumariyada Istiiriya magaalada Hargeysa waana kan Yuusuf Shaacir oo marlabaad inooga sii anba qaada taxanaha Siinleyda halkii ay inoogu joogtay cajaladii koowaad markii Cali Saleebaan halka uu dhigay oo aad moodo inuu gaariyo ku yar laaday waxa ku soo noqday Cabdi Aadan Qays وسنة صارق ناي صدق صودا خرق كلها مرك لقى تقو آخر حاجة نجح كاسين اللي صدق خرق كلها وارفون لا بقى يهتاوي سوت شوابين يمدوا رجع كلا وجود شوابين مركي أفراد أي صاقلة إما كوحو قادوا أذين يا جاهية يسعي صالح واحد من ده بلو جي مسكها تراولها شكادو سلفضانا مسعود كقاركتكم مصر ما فليسها لبودي سافت وعد مدين الدجنين هايدو لها وحاجة ولا سياسية كيباد مدائم كانوا أجاديو ودريامي إن شرقوا الله دجايو حاجة يحمر ويدا كل ذيك الله لا جس جايو عد مدائم مكعانكي ليه هاي وراء أنت بلبارة أو إيقع مركا كهرية سعيد بوي مكعاب الدرية وإهدينا إياها سر مقابل أيوسو لحيها وحول سرسر كيغا ميديقيا صاحب كي عليو أحمد إنا السليبان صديقيغا كليو سمالو هدراوو أحمد دايما السيقنا أبيهن السدايان سلعنا لا تشعلينا وصوماليو إذن شالياش السيمان إيا دولو إذن سلانا إنتان سيما لغو فيدين أنسحل الدنيا دي صليغا الناريد كسيفية إيبوه حكارديغا سفكيني هبوهاينا ساري وحانوغا سعداتها مرتدا إذن سوهنايد آنو دافسين كو سيدايا فرسكي سبحانك إنا أوميا صفها قرحون إيا سرطة إنا قول بيهان سيمين آدمي إنو سيدا فرحة ويو والله كلا سرية الدنيا سد كيدانا قف بس بحشوغبا waa laga sadcaaliya waxaan uga socdaataa waxana haynin saarano been laga sameeyo qaar suxun u sheegaya nacab gudin ku saafo seedaha la gooyo dhiigiisu saaxiibtoga gu sabeeyay iyaga saxaayo kala saari doonee gudideena sare iyo golwadaha lagu simo waa hagaag waxana haynin saarano daalacan la saaro haduu sama ku baaqana si xun loogu rogaye iyaga saxaayo kala saari doonee gudideena sare iyo golwadaha lagu simo waxana haynin samir loo suryo loo hagoogo dabin lala sugaye iyaga saxaayo kala saari doonee gudideena sare iyo golwadaha lagu simo waxana haynin sabankiyo saadaasha mooyee aan siyaasad gelin oo saymaha kalgacalka iyo saxarluunka heeso lagu xidhay sabeene iyaga saxaayo kala saari doonee gudideena sare iyo golwadaha lagu simo waxaan uga socdaataa anigiya in ila siman dhalintii Suudeen iyo joogtay sabada waaheen haday wada safaadeen sacab wada cayaareen maxaa tayda uu suray اللي باش ولا ودودي بله maxaa tayda uu qaar seeraheen iyo gurigeena seexdaa sidii xumeeyo sacabkii dhabqinayay ayaa laga sahwiyay waxaan uga socdaataa ragga hilibka solaya siniintana nacaaya hadba sinu ordaya gaariye Saciid oo miyaantiina lala socon ina saalax waakii siridii qarsoonayd sabab aadadayseen sadarrada ku sheegay masagaal wajiiliya casaanyada sideedad gaariyo sibqaysa waxaan uga socdaataa waliyada siraatiya suufiyada dawaafana saxar kama qarsoonee gaariye Saciid oo laba bala u socoto u saaxiibtay xumaha waligood seegto saada kuma heshiisay waa maxay sirtaa bari saamaha ku laabtay هو لبدي نيسيستي لبدي سيستي بس دوشة كسي ماجية مقار ساعة دورشو دad samaan u wada kacay kala seexinayo sunku haystay uurko dusha subag marsadayo sakalaayay uunko xaqo uu simbiiro nafsi seef ku jiido kala saaribati waxaan uga socdaataa
ogoobay sideedaba ninka ragi ma siibto suuradii ma guurto carabkiisa sare iyo calooshiis ma seegto hadba siduu u jeediya kama weecdo surinkee khaayin baa sal fudud oo saacaddiiba midabee boqmaseerayaashow inkastaa saqaafiyo salawe iyo been iyo sahwi aydu wadateen siin laydana ku sheegteen gaariyow sidaa tahay siciid baa ku dhaamo weli aan salsalin oo sabadiisii joogee sumad laba aflayntii adigaa sameeyo way kugu sar go-an tahay waan gartay labada isa saaraya soomaalida waxaan fari hadal waa si loo yidhi qof hadduu saluugana waa inuu su'aalaa ruuxii sameeyey saakana ma hayno weli waa la sugayaa madaxdii sareetaay waa inaa la socotaa sanadkaynu joognana dadkiiba isa sudhan oo gabay suubanaayo adigu aad si ula jeedaa sur inaanad marin iyo saba lala jibaaxaa madaxdii sareetiya xilsidaaga waxaan fari nimankaa sindahaya sadhaynaya hadallada soomaali gebigeed waa in laga sifeeyaa midna idi su'aalaye sikhi miyuu qarsoomaa ma mas baa subxaanyadu siyaasadi ma hees baa siday xaalka leeyiin arrimuhu sirgacanaa sara oo u fiirsada kacaankiibu afka kaga xereeyo ley war bahasha idinku soo galo oo nala eega waxaanu meesha ku hayno nimankaasi waa lagugu wanjalayaa iyagaba u dhib bahasha oo bahashiibuu dabankii iska fogeynaya waxaa ku soo noqday isaguna maxamed ibraahim warsame hadraawi oo isagu laba hore siin layda ku lahaayo cabdiqays ay isdhaafsadeen waa run wuxuu lahaa saxarla iyo sidi qabax laakiin intii dambe aad moodaa inuu ka maqnaa ka rogo haddana saar ayuu ku soo galay iminka waxaad moodaa cabdiqays inuu la hadlayo oo leeyahay waxba nimankan riiraash iyo siciid saalax iyo afqalooc iyo nimankii markii dhexe uu cabdiqays maagay war waxba nimanka ha ku mashquulina meel fog baynu u soconnaaye isku hagaajisa waxaaga oo cidiyayna mashquulin waan gartay ayaad moodaa iminkan u leeyahay wuxuu yidhi sabkax oo haddana seeman oo haddana sulan sidkan oo haddana sagan sahlan oo haddana sudan salleh oo haddana sigan sillan oo haddana sugan subkan oo haddana solan waa marka dadku leeyahay nimanku tartan af soomaaligaaba iskaga jireen waa xaqiiq meesha wax weyn kuma yahay waa marka kuwaa la arko af soomaaligaygow lagu saari waayo wax sawaaba noqotaye maxaan kuu sameeyaa sideen dadku u fahamsiiyaa ka rogo haddana saar waa lagu sugaayo lagu saadinayee cabdiyow ma socotaa xeebaha sintoodiiyo ninka saylac joogow sagalkiiyo daruuraha wararkaagii saaraa xamar bay bishii soon saxarqaadu keentoo sahankaagii noo yimi sahaydiina noo keen xagga yaga sareediya waa siirma weydee maxaad saa ka joogtaa ka rog oo haddana saar tiro siman 9 tuur 30 8 hoo waxa hadhay bal suuree maso'baa masaambaa 3 iyo 5 waa kee sakalaha ha laga guro 2 sulub ha lagu daro guryo sama ha lagu furo ka rogo haddana saar si layda maansada haddii saami loo dhigo dadka uma sinaato suugaanta hadalka iyo cabdiyow sargooyada lagu kala sadroonoo rabbi wuxuu ka siiyey sida ay la noqoto ninba saylad keenaya hasaluug riiraash ina saalaxa u dudi afqalooxa saamayn soomaali weyn baa xaajada la socoto iyagaa ka seegiya ka saxaaya garanoo kala sooci doonee laba seeb la yeelkii ha kulluma sursuuraha sixirka iyo shan xubluhu ha ka dhaca salaankee xidha saadaadoo iyo colaadaha samaydaadu iyo jam waayahay alaladeyd ka rogo haddana saar gabadheena saaqiya samawada ku magac dheer ragsaluugla suuban lagu yidhi sumadeedu waa caan kula siistay baaruud adna haygu sare tegi ka rogo haddana saar hararada sal iyo baar lagu taxay sitaacee loo soohay baarkiiyo saddexlaha ujeeddaa dhigta loogu saabo marti samafalkeedaa koramada sigaal jiray loo sudhay hoggaanku safar baa la furayaa sooriyaa la qalayaa sooriyaa la hurayaa sumalaa la qalayaa xididkiiyo sokeeyaha laga seexan maayee socotada xididkiiyo sokeeyaha laga seexan maayee salliyada xariirtaa socotada u kala roga ruuxii saboolow xilku saari maayee sacamaatada u godol saadaal ku noolow samirkana hamoogaan ruuxaan wax sidina shirka soo salaamow adigaa wax sugayee sarar iyo lag iyo badhi keebaan ku siiyaa sacabkaa ku qaadaa mid haddaad saluugtana iimaansad weeye 3 baligaho isku darso ka rogo haddana saar
sidig maqan ninkeedii talawow sar go-an tahay jid siraad korkiisa iyo suudaa la marayaa sannadaa la dhaxayaa sahay lagama maarmee hala jira sibraarada ka rogo haddana saar saanteenna guudkiiyo suntu hilibka dhaaftoo sal waxay ku leedahay saablayda uurkiiyo sanbabada dhexdoodoo maal baa la sarayaa sala looma baahnee kii seexday ow toos ka rog oo haddana saar soodhkiiyo bilaawaha sinta midig ha lagu xidho faraskana silsilada iyo seetada ha laga furo seefaha ha lala baxo seeraa la furayaa wiil baa la sabayaa saryan baa la dabayaa xaajada sal fudud iyo sakatiga ha laga jiro sahliyaan wax loo odhan sahwiyaanu kala ridin dhulku waa sanqadhayaa cagta saari maynee socodkeennu xeel iyo ha ahaada laba suul si rayaan la faalayn murtidana ha saafina ka rogo haddana saar maansadu ha socoto sida daad mahiigaan dhulka ha u sabayso kolba saba ha gaadho culimada salaaxdaa sangaha ugu joogtee ruuxii suldaarow gara inaad sabow tahay sodoh weeye xeedhadu ragna way u siman tahay ninka suunka taaftay ka sal gaadhi waayow gara inaad sabow tahay waa gabadh su-aal iyo halxidhaale sidatee ninka abusarmaanta iyo saddex qayda boqor kale kaga fura sindalagtee mala kaga sinaystow garo inaad sabool tahay hadraawna halkaa ayuu dhigay yaa ku xigay waxaa ku xigay soo rogay maxamed xaashi dhamac gaariye iyo markiisii saddexaad 4 heesoodoo hore waxaanu kusoo dhaafanay inay isdhaafsadeen siciid saalax waa run 2 heesood xaggii horena 2 heesood buu ku lahaa 4 bay isdhaafsadeen 2 isaga gaariyo markii hore salaan guud ugu horeysay iyo garsooro siciid saalax ugu jawaabay oo sadataal haddana uu kusoo noqday gaariye iyo saddex oo uu ku jawaabay siciid saalax mid hore oo ku jawaabay meel jir way jirtaayo waxa weeyaan garsoor marka 4 bay isdhaafsadeen midba labo qaba marka markii saddexaad buu gaariye imaka ku soo noqday waan gartay samirsiis ayuu ku soo galay wali waxaad moodaa inuu la hadlayo siciid saalax samirsiinayo xagga dambena waxaad moodaa inuu cali saleebaan laftiisa kala yar hadlayo wuxuu yidhi ma og tahay siciidow xalay baan saqdii dhexe cirka sare u eego sida dirirku leeyahay bisha soon markay tahay sabuux lagama heesee safar hayla boodine sanadkii marunbaa xajka loo sodcaalaa haddii aad sabool tahay sandullayni waa debed afku seefla yeelkii salu yeela sheekada ha ka degdegine ma og tahay salaaduhu midba saacad weeyo surmigiyo abaaraha waysadu sidaan qaba ku sax weeye ciiddeenni sahwiyey rukuucuhu kol labaad inuu sugo waa sadar hubaalehe kugu furan sujuudiye ma og tahay siciidow turubkiina maad sugin sibay raani leedahay baashe saar kuma odhan rankii saydh saddexlaha adqaadiya 8 lahoba waa biig haddii ay ku siidataad sukihii magaysoo saameeshay yeekii saaxiib maxaan qaban foorad baa ku saarane salu yeela sheekada taa lagula kacay ma og tahay siciidow sagalkiiyo arooryada warka loo sarbeebiyo subaxdiiyo habeenkaa saaka loo garqaado inay suurtii dhowdahay sangaabaqa la dhaafsho siiga dhiigtifleeyo sarka dhaban ku ledhan yaa saanad soo walwaasho siraadkii cadceed iyo caad saartay nuurkoo waxay saxarri leedahay xidig sudan korkaygiyo ifaan sii ridnayn oo igu sabayo been iyo soco dhowra mooye layga saab ilayskoo safan baan tallaabada hadba suul u dhigayaa siciidow xogtaa dhuux sanka burada ha u jarin hadal kuma sulay sida waan sidaayo hoosii surbiyaanka ha u mayin jaalle mayla socotaa salu yeela sheekada googaas siciidow sadkaagaan ku duulo dadka kale ka sooro sake aan ka bixiyo sadqa ii xalaal tahay tu kaleeta suuree idan laysu sooco safsaf loo tubaayo suma lagu ilaawo lagu sii dhexdaayee saadaashu waa maxay tu kaleeta suuree saaqadaan warkeedii kuu sifeeyey waa hore sadkii waa ka dhowyo sulabuu lafaysto walqashiisa saawirisaaka dhaafi maysee warankeenni sooyaan samaydiisi laalayd halka ay ku sugan tahay siciid ma warhaysaa tu kaleeta suuree sirtu eraygii jiiftaa saryan ii higaadsoo xarafyada sameeyaa saca farihi weeyaan shibanuhu ma soorana subci shaqalladiisoo 3 baa mid laga jaray ka gungaadh su-aashoo sagandaaq ku raacdee sidig oo hanaafayn jaalle mayla socotaa salu yeela sheekada sulo ciidankaan diray sahaydii kamay go'in soonaha iyo dhilowyaha ninka maanta soo howgeed saraadkii muu madhan sidii baa galoolkii maydhax looga saaraa waxay suuban leedahay
halkan saaka joogaa suryo oodan weeyo silic lagu mutaayo maaha saba ayaan lehe awrku saawo ayaanu goosan seetada xadhig iyo sitaacanaha ka sahamin jeerina isa suranta weydii ka salgaadh xaqiiqada salu yeela sheekada xadhig lama sitaanow sibiq ceelka ha u gelin 30 baac waxbaa dheer sallax weeye oogadu waa sursuur hareeruhu dhexdu waa habeen socod hoostuna sud weeyaan sayma lagu wareejo ka sokeeyo oo mane laba suule waa muruq waa harag sakaareha ku siixin laba ruux soo horaydu yeedhee u samee wadaanoo sida xuubka caarada sidaheedu yuu go'in salu yeela sheekada caliyow sargooyada waan kugu saluugo samadoon habkeedii tani uma salaaxno safar meel fokaa jira sahal looma naco oo lama sira ninkaa maqan samsam iyo bulaalow cayd iyo salaantii igu soo sinaadee warka aan ku siiye jaalle saaxibaan ahay ha iska kaysaloolane horta saani ii baro sida taashi kuu timi kuma cabanin saaxiib dhagasiiga awdaan u tumaayay saaroo naf sagaal shub mooye weer saran aqoon baan u saafayay sheekada hadda lama sudhnaado cabdiqaaday seeftii hadda waa safkaan ahay ninkay seegtay oo maqal sayla xal ha loo diro waxay saxari leedahay may samadu heestoo buuruhu siqaanoo subulaha galbeed iyo saraar laga dhawaaqoo sanqadhaan cirjiiruhu may waranka sooyaan samaydii subaantoo sabeenuu hadlaanoo suuban laga wardoono ninka samaha raasiya suxun waxuu tilmaamaha salaan loogu yeedhoo la yidhaahda kala saar waxay seeb ku leedahay sirtayaan la faalayn hala sugo jawaabaha waa saxarla sheekadu waayahay gaariina halkaas buu dhigay bal waxaan odhan lahaa xasan cabdiqays iyo hadraawi oo kolleyba gunaanadka aynu usoo noqon doono aan iyagu way ugu dambeeyaan bal qolyahan la foole iyo burco iyo dhulkan isku haystay iyaga halkaa aan u yarkaadino aan dhinaca jabuuti u kacno u yarbaydhno dhowr qof baa reer jabuuti kaga jiray oo xataa gabadha quree bahasha ku jirta ay ka mid tahay dee sida ka muuqatana silsiladu jabuuti la foolaa miisaankeedu oo ka imanayay laysaga hal celinay waxaa soo galay nin la yidhaahdo xasan cilmi oo ka mida abwaanada reer jabuuti suugaan badan iyo fan badan leh xasan siduu isba sheegay dhinacna wuxuu doonayay bal inuu wax ogaado oo wardoon buu yar yahay xog raadis oo dee bahashan nimankii bilaabay iyo dadkii ku jirayba aanay isfahamsanayn xataa dee dad cid kalena ma fahmi karto marka dhinac waa ka yar wardoon dhinacna cabdiqays oo dee jabuuti difaacaya buu isleeyahay u yar hiiliyo xaggaana itaalka ficil yaa kaga jira wuxuu yidhi sanadkani intuu yahay iyo kii sibqee hore sahanada isjidhiya heesahan sadcaalkaa ee siinka laga wado nimankii sameeyow horta idi salaanaye subax wacan ma tooste marka xiga sangaabti iyo magacani la saanyaday balaanidi su'aalee saxarladu ma gabadh ba kuwa sabanka joogiya safka haatan soo kacay mata ugu sadroonba masindheer koraysoo sabar geeyo ugubloo quruxday suleekhiya nebi yuusuf sidataa ma abeer sirsiran oo 32 ku dhaaftoo sararaha ka naaxda ma duqsamaha talisoo isa seega necab iyo sodoh loo bogayaa masir hoorsa socoto ina sare u qaadaan dadka laga sandahayaa masareeda iyo maal ragba wada sugaayoo laga seexan waayaa ma 8 guuriyo suus iyo nuxuus iyo cudur soo siqaaya ma gusooro baaqdo seeskiyo abaartii kala sooci waayaa ma sabeen halawdo 3 bari maqnaydoo reer wada sabool ay subax raadinaya ma suldaara iyo been doqon lagu sabaayo sawir la hadlaya waxaa buu leeyahay horta waxa noo sheega fahmi weynay inta mid deebay tahay marag sawdka maansada softaran habawsho seeraha u yaaliya marankiisa seega Soomaaliyo idil salaw bay ku kicisay xaajadu siloona sooyaanku waa maxay ma sacba idin dhalay dib lagu sidkaayo solayga u shidaysa waxba yaana sii wadin sawaxanka doodee sugaanta dheer iyo kaftan lagu sargooyo kala soocan mooyee anigaan murtida sarin seedahana gaadhsiin sigibtiray warkaygii waana saadinaya haddaan seeftu igu dhicin inaan suga jawaabtii sidan ararta loo simay ase aan la kala sixin waan salowgay aniguye sarawa ujeedada ma nasiin karaysa war ma nasiin karaysa ma noo sheegi karaysa macnaha waayahay xasan cilmi nimankii uu warka ka doonayay waxaad moodaa inaanay iyagii u jawaabinay nin kaloo reer jabuuti oo isaguna ah abwaanada aada ugu culus xasan muxuu u bixiyey markaa iyo magac
magaciis umu bixin xataa isagoo tirinayana waan arko magac umu bixin waan gartay ibraahim gadle ibraahim saleebaan oo isaguna runtii aad abwaan la yaqaan ayaa u jawaabay xasan cilmi nasiib darratiisi iyadoo dhan imay soo wada gaadhin xataa jabuuti maraan isku aragnayna dhowr jeeraan weydiiyey may suuro gelin inuu iisoo dhammaystiro waa kuu keenayaa buuri laakiin ima soo gaadhsiin marka inta aan ka hayo baynu qaban doonaa waxaanad moodaa intii nuxurka ahayd inay intan tahay uu halkan cajalad buu ka sheego cajaladaasaan ka soo guuriyey ibraahim wuxuu leeyahay war xasanow nimankaa soomaaliya isku haysta inagu reer jabuuti baynu nahay baxarkooda iyo hangalahooda haynoo keenin waa intaasoo la yidhahdaa arrintii 60 iyo 5tii Soomaaliya wixii la raadin jiray aynu baxarkii dib u galaay nimanka inaga daabulay wuxuu yiri Suuriya laga dhargaayay salaam baa la soo diray wax la sogordahaayay waa sarbeeb ujeeda leh halka sacabka laga tumay waa subula guudkood ana salaga dhaantada kama seexanayo saamigan u leeyahay safka ugu horeeyaan sadarada ka galiya afartaas saxo sarayo dhameeyay mar labaadna ila soco sardha hore qof jiifsaday hadii saama lagu tumo sanqar waa ku toosa sugul soo madoow maalin si sagootay kala soo cafiidkii sabi soo gurgurtiya wax sawaaban oo daran sanga waa ka dadaya waan gartay deebaa soo gurgurta bas wadaya sir ma weydo hortiyo roob saraa ku soo daay oo siigadii namay dhulka simay xareediisa iyo caleen bixi suugan yaqaankuna mar haduu saloogtamo saadaala maqan iyo subaxa wixii jira sawir buu ka reeba saqda dhexe habeen dama gud curaan siraa jirin kriisuulka taagana subaxda la sheegaa sare hadalka iyo dhiga saqadha la dhawra Soomaaliya uu sheegay wixii waqtiga ka jiray iyo kacaankii iyo subuunin nabad sugidii iyo deesaydii waxyaabihii sida sabanka iyo waqtiga eeg sadka adiga ku yar sulmiya la mariya dayaxa ka sareeyo suqra miya la gaara bada sacab laguma dhuro halkaas uu isaguna Ibraahim ka saaray uu leeyahay inagu reer Jabuuti aynu nahay sadka adiga ku yar sulmiya la mariya ayaan haynagu gelin bada waxa soo gashay gabadh la yiraahdo Caasha Jaamac Diiriye oo iyadana reer Jabuuti ah Caasha Jaamac Diiriye Caashi qolyihii la foole ayay la hadlaysaa waliba waxa uu doonayaa raawigii bahasha bilaabay ay aad la hadlayso laba fiday ku leedahay oo iyadu gabaya halka nimankan heesta ka tirinayeen iyadu waaba gabay runtii aad u qurux badan oo sarbeeb culus leh laakiin Yusuf aan ka dhaxgalo halkaas gabay iyo heesan kale waxa laga yaabaa dhalinyarada waqtiga joogta inay u qaataan inuu de wuxuu wada gabay oo iyagu wixii aan muusig lahayn yahay ay gabay wada haystaan marka bal waxa jeclaan la horta inaynu halka kala yara saarno badan imaka aynu wadnay ay ku saabsanayd heesaha badankooda marka tii xashaan laga reebo heesaha isku xigsiin leeyo inay yihiin badii jiiftadii caadiga ahay gabayguna la yiraahdo kan soo socda oo ludii gabayga caadiga ahaa la way sida ku kala duwan yihiin xagga مثلا hoojiska iyo horiska kale uu ka duwan yahay dee cod ahaan uu ka duwan yahay bad ahaan uu ka dheer yahay siyaabo badan qofkii kastoo dee sugaanta dee qofkii dee xitaa qofku dareemaya markuu dee u yar fiirsado wixii kala duwan yihiin marka waxay tiri tixdeeda hore kolley waxaan filayaa laba tixood bay tirisayoo adigu in wax ka dhidhiman waan filayaa laakiin iyadoo cajalad fiidiya ka tiran sanad uu ka soo guuriyey oo kolley si kadiis uu lagu yiro markaa halka ka sheegtay waxay tiri saada gabay Samaalow in adeer maqal su'aashayda sanadaba waran qarinayaan ku sarsarayaa sida sagalka ruuxaad u taho kugu sureeraya seedaha midaad kaga jirto sidee jacaylkaagu sanbabada iyo feedhaha midaad saakin ku ahaatay oo waliba sirtay qarin lahayd sababta sheegaysa subxaankaana kugu dhaarniyay saatirka ilaahay sabaaliya adigaan ku dayin been ku samirsiisa sidaad oran lahayd iyo cadeerun adigoo siigay أنا هذا الكسام لا يساعد تريد هذا ما السكر يدمرك يا أنا وكل الصفين عيا وحنا هيسمى وتدرفتي سحر لا ذادي صوص عسنا بحو مقران وانكسو جاي صوص عش علوي ستاي من سيديني نين السرين نين ساتادي جاي نين سبالي صوص عن كوكرا سوق سيدا يسوق عدي
saygaygii dhoofow intaa waan ku sugayaaye subaxaa dhaqaaqdaa rugtii la iska saanyeedaye sidkihii waxaa lagu lisaa dhulaan u soorayna wax sidkaday nimaan kugu simayn igana suurayne sabigii yaraa wuu ka qaday saakasay tahaye soo soco sinaba ha u maqnaan waan ku sugayahay waayahay saankii la ii diray markuu sooba noqon waayey aan saadiyey ee dhowray ee waayo badan soobay marunbay siyaabaha dhacaa ii samaan noqonee saacadaha ee baahayo waan ka sugayaaye aniguna ilaahay aan ka suga suu ka dhigi doono haddii se suxunu sheeg sixir ka daranee hadalla soo sayday saxarlaha warkaa tidhi hadday subax ku soo gaadhay sinaba ha u maqline waxaad ogaan sacabasaarkeena iyo wacadkaynu seeraniyo saynu leenahay riddada hore halkaas bay dhigtay runtii waxay ka hadlaysaa jacayl maahe waa qadiyaday ku sarbeebayso jacaylka cabdiqays gabadhaa arrin buu ka yidhi wuxu hi aniga waxay baasha iga xumaatay markii gabadhaas soo gashay dee ay tidhi muxuu ninkan iiga ka hortaagan yahay rag baa iga ka hortaagana soo soco iyadoo markaas weliba halkaa isu dhigaysa dee inay tahay jabuuti oo weli de mustacmarad dee haysato oo ay leedahay weliba xagga dambe ku sheegaysaa de cabdiqays ma lahaa gabadh saxarla la yidhahdo oo reer jabuuti wax ka soo tabinay dee iyadii baaba dee hadda soo waxay tihi dee ninkaa cabdiqays wuxuu sheegaya xagga ma jiraan haddii si suxunu sheeg sixir ka daran hadalla soo sayday saxarlaha warkaa tihi waa tadii halka kale riddo labaad bay haddana u dirtay isla la foole gabaygaa dambe waxay raacaysay subeeciyad calan kii soomaaliya iyo seef maya waa raawi laftiisu uu sheego waxyaabaha laygu xidhay lafteeda sabab bay u ahayd buu yidhi kamid tixda labaadna gabadhaasi waxay ku leedahay iyadoo isla halkii hore un garaacaysa salaamaadka yaasiinka iyo suuradaha weyn wa safka degan la fooloo dhanow idi salaanee wa saamiga midkii ugu helaa saba la taalin wa aniguna sidaa u dhan tihiin idi siyaarteewa wadaasi waa heesihii islaamuhu yararka u qaadi jiren carruurta iscaruureedii sokeeyow samaalow wacnow igu samaysnow wa sagaaloodka ii dhaha rabiya saban barwaaqow wa samow maxamedow abuhadrow samatrow heedhe samow maxamedow abuhadrow samatrow heedhe soo kore u sheega caliyow saxarle xaalkeeda sarreeyaha u wari luuqda waysana shishaysahay afartaasaada intan ka dayay sadar kalaan baanay soomaali anigoo ahaan sugur dox yeelaynin oo saxarle magacaygu yahay sadar kalaan baanay seeftana guddoon waxaan rabaa inaan samaanaayo subeeciyadan laalaaban qabo way la socotaayo siciid saalax wow marag ninkii tiriyey sooraaye soodhkana u xidha wiilashii ina sadhaynayay hana ka seexan hawlaha nin ragi waa saldiriirahay afartaasaada intan ka dayay sadar kalaan baanay allow siman sabool caydha iyo sabani yaalaaya allow siman nin seetaysan iyo socota dheeruya allow siman sadkii nimuu lumiya sidig nin maalaaya allow siman jacaylnimuu sutiya nimuu sugaayahay afartaasaada inta ka dayay sadar kalaan baanay saddex inaan ragwow siman yahay sadar kalaan baanay midi waa saddex ayaa ku yaal sina hubqaadkooda magta inaan ragwow siman yahay sadar kalaan baanay haddiise saawasaawiya la galo suluf colaadeedka ay soo rogaay iyo ceshay siiga kor u duusho lama sima sarbeeb halgamaayo dib u saqleeyaaye raggii saxarla faalleeyay ee siinka ka hadlaayey aniguna iskuma soorayo kalaasad weeyaane sarisa maayo boogtee waxaan hadal ku saameelay waa wada sokeeye ragaan sumad wadaagnaaye intiina sadkiin wuxuu noqdaan idinku sooriyey saddex hadal xidhaaloo jira siinka ka higaadsa siday tahay usoo qora ma rabo inaydu seegtaan saxan hooyadaa nimay dhashay oo saaka kula jooga atal iyo maandhow taqaan soora kula quutay sina aan walaalkuugu noqon siinka ka higaadsa midna waa sagal guyoo baaqday ee siinka ka higaadsa midna waa sandalad geelu yahay sidig dhashoo raacda sarisa maayo boogtee waxaan hadal ku saameelay ninkii saxarle waa been yidhow soo baxo waa duhure saca beena kii ii tumow sabi ahaantaada saygayga kii igu dirow saaka waa nabad halkaas bay cashina kaga baxday alla raxmayana way dhimatay oo dhawaan bay dhimatay hadraawi wuxuu sheegay cabdiqays iyo hadraawi midba saamayn bay ku yeelatay gabadhani cabdiqays waatanu sheegnay oo waxay ka xidhantay mawduucii wuu ka xidhmay hadraawina wuxuu yihi markii alaabtii laygu keenay xamar markiiba waxaa loo sheegay madaxweynihii dabeetana waxaa la yidhi dad jabuuti joogay dad xamar joogaa isku xidhmay oo arrintuba malaa dee dadkii wuxuu sheegi jiray baa sidaa u dhigay hadalkii dabeetana askar baa laysoo diray buu dabeetana subaxii baa la yidhi soo dhiib alaabtii lagaaga soo diray jabuuti dabeetana seeftii iyo calankii iyo subeeciyadiiba waan dhiibay subax labaadiina askar baaba laysoo diray oo qasax dheere ayaa lagu tuuray buu yidhi halkaa markay maraysay arrintii kollayba gabagabadii bay maraysaa waxaa ku soo noqday cabdiqays waa markiisii shanaad waa ninka ugu heesaa badan cabdiqays
طبعا heesahani marka labadan ugu dambeeya isagii xadraawi waa xidhitaankii siinle cabdiqays waxaan soo sheegnay in saxaradii warka ka soo qaadayay gabadh ka soo baxday Jabuuti oo ay tiri oo saxarla magacaygu yahay sadar kalaanba mushkilada cabdiqays waxaan noqotay markaa inay heestii siinku ka xidhanto waa taas marka wuxuu damcay inuu dhinac kale ama weji kale u rogo sheekada u rogo dabeetana xarafkii siinka uu ka guurayo xaraf kaloo ba ayuu u guuray isla markaana wuxuu weeraray haddana mar labaad hadraawi oo hees la odhan jiray beled weyn oo iyaduna waqtiyadaa cusbaydoo soo baxday oo laakiin mawduucan aan ku jirin ee hadraawi dee si madax banaan jacayl iyo meelaha iyada ku saabsanay ayuu mar labaad attack ku sameeyey isagoo laba wajiba uga adeegsanayo dhinac wuxuu doonayaa inuu siinkan uga gudbo qolyahan kale isku haysta dhinac kale wuxuu doonayaa hadraawi gooni isula baxaano dabeetana intuu beled weyn weeraro hadraawi soo jawaabo ay mar labaad sidoo kale halka uga furanto wuxuu yiri siinki wuu ballaadho badaa lala jibaaxay intaan bohola lagu dhicin imika aan ka baydno baal kale u guuree waa baclaya iga qabo baxsan hadraawi boqorkii amaanto baashaha aqoonto maqlay inaad baxaan baxa socotada ku baahdo beled weyne aado barwaaqada iyo raaxada badarkii ka heesto gabadh aad u qurux badan bilan aad la kulanto la wadaagtay barasho jacayl kugu bariisto boholyo ku haystee baryaan kala maqnayno kala baadnay inaguye bayd go'aaga maandhow baydaan kaa su'aalay bulshada iyo kooxda hadmaa wada boqoshe baabuurka yaa waday ma midaan biraysnayn kuma taliya baasoo beenayay taadii bal noo sheeg ninkaa baan biyadhaca warkaygiiyo baaca aanu dhaafee dumar waa badhaadhaha ragna waa bi'iisee nin afkiisu bayd adag kaga giijay boqomaha anluunbaa ka bixiyey isbambaanin weydaye kalgacalma baaboo adigaa ku baanoo boogaan la dhayiniyo inuu yahay bir caashiqu beerlulo u sheegee buqaankii suleekhee barya aad u jiiftiyo hadmuu ba'ay xanuunkii baahideeda saxarliyo ma bogsaday walaaci geed baaxad weynoo la yidhaahdo baarbaad baaqa noogu sheegtee waadigii u baaday u ilaaway baadkee basradii hargeysiya bardihii maxaa helay wabiga butacaa beled weyne kula tegi beeraha wajaaliyo banka gabadha joogtiyo aaway bilic wanaagii bi'i waa kalgacalow hadduu maanta baaba'ay burco iyo nugaal iyo jacaylkaagii boorame jacaylkaagii berigii ma ilowday boorame ballandaridu waa ceeb laba boglayna waa cudur beerlolo tilmaanta ee caashaqii berbere iyo meebari samaadkii hadba midaan bukaan qabin xadaantada ku beerta ee xiisaha ku badanaa boqol miyaad u qaybsami kala garabad iyo webi biyahooda kala saar waa bariido qaysiya kaaga timi bilaad fogi waa bushaareyga qabo heestaas cabdiqays oo beled weyne uu daba socdo ayaa hadraawina ka soo jawaabay beeraad hees la yidhaahdo ayuu tiri oo cabdiqays ugu jawaabayo taas baa siinley ugu dambaysaa hadraawi cabdiqays waa iska un wuxuu leeyahay xagga dambena wuxuu ku leeyahay dee beled weynaad la yaaban tahay be imika waxaan sii socdaa baar dheere iyo jamcama iyo baaban sii socdaa oo dee hablaha soomaaliyeed gobol walba jooga ayaa ma jiraan marba tii soo jidataan dee eegayaan wuxuu yidhi aanbaab tusaalaha ku bireeya heestee waxaa iga bannaysina bismillaahi waa kow cabdiyow ba' lagu yidhi beertii jacaylkow haddii siinka buuq iyo barax iyo cindiid dhalay kaftankeenna baaliyo ba'ba aanu roganay waa inoo balooley lugta bidix ka jaamee barni iyo saluugliyo basradii hargeysiyo burco saxarladeediyo cabdiyow ma beenayn ballankii suleekhee sadbursiyo doonbaa beled weyni geysoo badhidaan la geedii islahaa ku biirso waxaan buuxi leeyahay haantii barwaaqe bi'i waaye qaysow hawshayda baahdiya baylahdayda kala quban xilka aan u baydnahay barashada xasuusta leh ha ka dhigin barkumata ana badi hadaftoo iska badalay roortiya hayga dhigin nin biya dhacay sheekada bu'deeda iyo baaceeda sii raac gunta hoosu sii baadh ibaxnaani saaxib ruuxaad biyiis iyo intiisa baratee badankiiyo calooshiyo kuu baara feedhaha boogtiisa qaysow lama sii banneeyo bacda lagama jeexee ibanbaani saaxib beerlula warkeediiyo buundada korkeediiyo baaxaadagaygiiyo kalgacaylka beermiya taliyaha ee bari furay bandhigiis berigaa waxay dhacay bandhigiini joogow
sheekada ka bogato uma baahnid faalle adiguba barbaarta iyo bulshadaad la socoto barbarbaad ka saarayd baabuurka dhoofo batarka iyo cayaartaba adigaa ka boodo abdiyow baroortuba ka barweeye maydkee baybaysigaagiyo beeraadkayga tahay kadma biima weeye taladii bir lagu jaro hadday baydu furato xarkaheedu buubaan lama baraq nuglaado bishmahaaga qaysow baqay lama qaniine waxaa loo bareeraa biyo dhiijinteedii haddaad buro ka leedahay biyo jira ka shaadiyo haddaad bayr ka leedahay biyo jira ka shaadiyo buro adiga kugu taal boqolina lagu dhacay ma bir baynu xidhannaa yaa baashu siday doontaba ha adigu wuxuu dhex socdaa gulwadaha lagu simaday iska buuqi maayo bulxanka iyo qayladu wax bilaasha maahe beesheenna weyn baan ku baxaanbaxaayo hadba dhinac ka booqdaa hablaheenna bilig iyo bilic lagu majeertee loo sohay baarkaa timahaa ka badanoo iyagaan badiyo webi uga baaqayaayo anna biligta laafyaha baxsanaanta jaahaan ku baraarugaayo hadba tii ibaabtee baholyow igelisaan kalgacaylka boodhari ku bariiriyaayo boogaha jacaylkaan siiyaa barhkeedii waxaa kuu bushaaraa biritana jamaamiya baardheerayge beled weyne waaba dhow yahay waa sii socdaa ida 100 kun gaaro barqanaya doog baan hadba baal u rogayaa bahalaa ka rabayaa baashaali maayo barkan maayo gacante cabdiyow baleela soco wadigan ba iyo siin labadaba bilkeed aanbaab gunaanada ku bisleeya heeste wadigan ba iyo siin labadaba bilkeed ayaa ana baad doonka iyo budulkan ku jooga bala way dambaysaa haysboobi saxiix waxna dala markuu leeyahay bala way dambaysaa waa tilabadoodii bal xidhay isaga cabdiqays baa wata la xidhay oo cabdiqaysna ma lix sanood buu ka soo laac oo laba jeer baa marba lagu celiyo waa kii dameerka iyo dee heysayay laba shan sanood buu ka soo laac marka markuu leeyahay bala waa dambaysaa waxaad moodaaba iyo dee tii markii dambe dee tan dee dunida markii dambe Soomaaliya dee ay oodaa goosatay si halkaas bay inoogu dhamaatay dabcan inta badan waxa iska dhacda marka xarafka laga baxo silsiladu ka socoto ta dambe inta badan ma hana qaado waxaan garan karnaa deelaydi markii abdi iidan shinka u guuray inaanay hana qaad noqonin marka halkaas bay ku dhamaatay waxaan oran karaa kullayba waxba ka dhiman dhowr heesood ayaa ka dhiman intii aniga soo gaadhay intaas bay ahayd waxaan ku bogaadinayaayo kullayba runtii aad iyo aad isaga xil saaray oo dhowr jeer duubay hadraawi anigana ajnadiisu kuwaas iga soo gaadheen iyo waxyaabo kale oo aad u qoraalle iyo meel kale aan ka helay adigu almuhim halkaas bay si lay fadhidaa dee wixii kale aad u dhaafayso adigu jirta